Ilaahi Raxmaani Raxiim habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararka caawa qodobada barnaamijkan aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iiraan oo sheegay inay xoojiyeen wax soo saarka hubkooda isla markaana ay sii xoojinayaan diyaar garowgooda dagaal isla wararka Iiraan gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan oo ka warbixiyay kulan uu la yeeshay taliyaha ciidamada Pakistan oo booqasho maanta ku tagay caasimadda Iiraan Sacuudiga iyo Xuutiyiinta Yemen oo ka hadlay weerar gantaal oo lagu qaaday markab ku xirnaa dekedda Yunbac ee badda cas ee Sacuudiga iyo Ruushka oo kordhiyay duqeymaha culus ee uu ku hayo dekadaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Ukraine dhammaan qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo falaqayntii ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa hada mar kale daawadayaal haddaba maxamed maxamuud cade oo wararkan isu soo duway ayaa barnaamijka ila falaqaynaya maxamed waxaad inoogu bilowdaa wararka caawa kuwa ugu waaweyn Iiraan ayaa weli waxay wadaa in ay soo saarto gantaallo lagu sheegay inay yihiin kuwa la hago isla markaasna ay yihiin kuwa asiibaya hadafyada loogu talagalay marka laga gudbo wararka ay cadawga soo saarayaan oo ay aaminsan yihiin sida uu afhayeenka jamhuuriyadda islaamiga ah ciidamada ilaalada kacaanka oo hadalka u dhigay afhayeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in gantaalada soo saaridooda iyo awoodda Iiraan in la kordhiyo ay weli si fiican u socoto wuxuuna ku gacan sayray waxa uu ku tilmaamay cadawga tilmaamaha iyo sifooyinka oo ka bixinayo awoodda military iyo wax soo saar ay Iiraan leedahay oo ah kuwa casri ah oo aan marnaba la carqaladayn hakana wuxuu sidoo kale sheegay in cadawga Iiraan ay mar horeba ku guuldareysteen inay gaaraan hadafyadii ay hore u sheegteen inay gaarayaan hadafyadaasi waxaa ka mid ahaa isagoo soo xiganaya dadaalada dib ay isugu dayayeen Maraykanku inuu ku furo marinka Hormuz oo uu ku guuldareystay afhayeenka waxaa kaloo uu sheegay in Iiraan ay si buuxda gacanta ugu hayso wax faahfaahin oo dheeraad ah kama bixin hubka ay soo saaraan iyo qaabka ay kala yihiin Saudi Arabia shirkad caalami ah oo qaranku uu leeyahay oo la yiraahdo Bahri ayaa xaqiijisay mid ka mid ah maraakiibteeda in lagu weeraray badda cas dhammaan waxa ay yiraahdeen sida ay warbaahinta u sheegeen bartooda bulshadan ay ku qoreen in dhammaan badmareenadii saarnaa markabkaasi ay bad qabaan oo wax dhaawac uusan gaarin markii horeysay Ansaarullah oo ah ururka Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen markab shidaalka qaada oo mariyay badda cas oo ay la eegteen gantaalka la yiraahdo nooca ballistikada afhayeenka Ansaarullah ee Xuutiyiinta ayaa soo saaray bayaan uu ku sheegayo in markabkaasi shidaalka qaada magaciisa la yiraahdo Amzan ayna lahayd dowladda Saudi Arabia waxaana lagu beegsaday xeebta Yunbuc ee dalka Saudi Arabia waxaana ku dhacay gantaalkaasi ayaa la sheegay inuu si qumaati u halaalay oo toos ah natiijaduna ay noqotay in uu markabkaasi dab qabsaday dowladda Maraykanka ayaa isu diyaarinaysa inay ballaariso cunaqabataynta lala beegsanayo dalalka iyo shirkadaha ganacsiga la leh waddanka Iiraan sida wakaaladaha wararka ee reer galbeedka qaar ka mid ah ay ku waramayaan oo soo xiganaya dad xoogaal u arrimahani warbixinta ayaa sidoo kale xusaysa in wasiirka maaliyadda ee waddanka Maraykanka uu ballaarin doono cunaqabataynta ka dhanka ah shirkadaha xiriirka dhaqaale la leh waddanka Iiraan si Iiraan cadaadis loo saaro tallaabooyinkaasi ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan in cunaqabatayn la saaro shirkadaha xiriirka ganacsi la leh dhaqaalaha waddanka Iiraan sidoo kale cunaqabatayntaasi waxa ay saameyn doontaa shirkadaha ajnabiga ah iyo kambaniyada ganacsiga kala shaqeeya waddanka Iiraan waxaana dhici karta in la kordhiyo khatarta ah in caalamka oo dhan ay saameyn weyn ku yeelato ciddii xiriir leh waddanka Iiraan cunaqabatayntan dowladda Maraykanku ay damacsan tahay afhayeenka baarlamaanka waddanka Iiraan Maxamed Bagar Qalibaf ayaa sheegay in uu wada xaajood nabadda gobolka iyo amniga dadaallo loogu jiro uu la yeeshay madaxa ciidamada qalabka sida ee waddanka Pakistan oo wada hadalladooda u bartilmaameedkiisu ahaa arrimo horumareed ee saameynaya gobolka
Al-Baaf ayaa sheegay in wadaxaajoodyada wax looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin sida Pakistan ay ku sii wada lahayd dadaalada ay xasilooni uga abuureyso gobolka loona xoojinayo amniga gobolka. Waxaana lagu nuuxnuuxsaday Pakistan inay door muhiim ah ku leedahay in ay taageerto hindisiyaasha looga gol leeyahay in xiisada hoos loo dhigo. Afhayeenka baarlamaanka wax faahfaahin oo dheeraada kama bixin hindisaha iyo heshiisyada uu la gaaray dhinaca Pakistan intii ay wada hadlayeen. Kulankaas ayaa imaanaya iyadoo xiisad weyn ay gobolka ka jirto, isla markaasna uu socdo dadaallo diblomaasiyadeed oo wadamadu ay wadaan ay ku raadinayaan sidii looga hortagi lahaa dagaalka in lasii ballaariyo lana dhiirigelin lahaa inay wada hadal labada dhinac ee dagaalka ku lugta leh ay yeeshaan. Arrimaha Falastiin oo ah arrimaha xudunta u ah qalalaasaha ka jira bariga dhexe ayaa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxa uu kaga hadlay kulan uu lahaa boqorka wadanka Urdun boqor Cabdallah oo ay kulan ku yeesheen magaalada Beijing. Madaxweyne Xi ayaa ugu yeeray xal siyaasadeed iyo in dib loogu noqdo wada hadaladii u dhaxeeyay Falastiiniyiinta iyo Israa'iil iyo in Falastiiniyiinta loo ogolaadaa inay dowlad madax bannaan samaystaan sida laga soo xiganayo kulan kooban oo iyo wararkaas oo kooban oo laga sii daayay warbaahinta iyo idaacadaha wadanka Shiinaha. Wararka caalamkana waxaa ka mid ah Ruushka ayaa daldalgeliyay weerarada ka dhanka ah kaabayaasha dhaqaalaha ee Ukraine iyadoo wasaaradda difaaca ee wadanka Ruushka ay sheegtay inay mar horeba qaaday weeraro lala beegsaday dekeda Odessa dekedaha ku yaala gobolka Odessa qaba ka mid ah. Maraakiib ayaa la sheegay in ay geynayeen qalab military oo ay u wadeen ciidanka Ukraine dekedahaasi. Wasaaradda difaaca ee wadanka Ruushka ayaa intaas ku dartay in ciidamadooda ay isticmaaleen hubka niishaabka leh xagga cirka diyaaradaha drones oo lagu weeraray qaybo ka mid ah dekeda iyo dekeda kale oo Ukraine ay leedahay. Waxaana sharaxaad laga bixiyay duqeyntaasi in la beegsaday qayb deked ah oo ku taala Bivny oo sidoo kale loo yaqaano Yuzhny oo ka tirsan gobolka Odessa. Waxaana waxyeello ay gaartay markab shidaal iyo qalab kale u waday militariga oo wadanka Ukraine. Sida Ruushka laga soo xiganayo duqeyntaasi natiijadeedu waxay noqotay in la burburiyo 10 goobood oo agabka militariga lagu kaydiyo ku taalay dekedaasi iyo sidoo kale kaabayaal kale oo loo isticmaalayay in lagu dejiyo laguna xareeyo ama maqaasiin looga dhigo agabka militariga ama kaargooga militariga. waa hagaag aad baa u mahadsantahay maxamed. daawadayaal waxaana goordha u gudbaynaa qaybtii falaqaynta iyo wixii warar degdeg ah ee soo kordha balse aan ku hakan qadar xayeysiisa. waxaad inooga warantaa maxaynu kala soconnaa safarka taliyaha ciidamada Pakistan uu ku joogo Iiraan iyo waxyaabaha ka soo bixi kara wada hadalladan. waxay u muuqataa baa laleeyahay in Mareykanka iyo Iiraan midkoodna uuna doonayn in wada hadallada diblomaasiyadeed dib loogu noqdo sidoo hadalka u dhigayo Rashid Al-Muhannad oo ah madaxweyne ku-xigeenka xarunta cilmi baarista siyaasadda caalamiga ah. halka booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Cumaan uu ku maray wadanka Iiraan ay muujinayso in ay jirto rabitaan ah in dhexdhexaadinta la wado la isku dayo in la isku soo jiijiido labada dhinac Mareykanka iyo Iiraan oo diblomaasiyadda jidkeeda lagu soo celiyo. haddana waxaa cad labada dhinac inaynan doonaynin inay ku soo noqdaan wada hadallada xilliga la joogo sida Muhannad uu hadalka u dhigayo. maxaa yeelay buu leeyahay ma jirto buu leeyahay colaad furan oo socota isla markaasna ma jirto buu leeyahay nabadi ma jirto. waxaana u muuqdaa dagaalku inuu yahay mid la isku riiqday gaar ahaan dowladda Mareykanka ayaa hadda cunaqabatayn hor leh soo rogaysa oo ay ku jiraan in wadamada kale iyo shirkadaha kale ee ganacsiga la leh wadanka Iiraan lagu soo rogo cunaqabatayn. waxay ila tahay buu leeyahay wadamada wax dhexdhexaadinaya iyo wadamada gobolka bariga dhexe kulligood in ay riixayaan sidii diblomaasiyadda qadkeeda loogu soo noqon lahaa oo muhiim ah. waxaana loo baahnaanayaa
in amniga gobolka laga sii shaqeeyo sida khiyaarka keliya ee looga baaqsan karo in xaaladda hadda sii jirta ay sii socoto iyo in colaad buuxda lagu noqdo sida almahanad uu hadalka u dhigayo. waa gartay marka dagaalkan muxuu ka bedelay qaab dhismeedka amniga gobolka bariga dhexe? wadaxaajoodada ayaa waxay u muuqdaan in la ismari laayahay. Wadamada gobolka ayaa taa bedelkeedii waxa ay baadi goobayaan in ay ka shaqeeyaan sidii dalabaadka labada dhinac Mareykanka iyo Iiraan la isugu soo dhaweyn lahaa markay timaado xagga militariga iyo xagga diblomaasiyadda, sida uu hadalku u dhigayo nin la faguraa oo la yiraahdo Alexandru Hudisteno. kadib markii bilo badan ay colaadi socotay, hadda waxaa bilowday inay u muuqato in xaalad cusub la galay. ugu yaraan waxaa leeyahay waa xilli kooban ayay xaaladani socotaa. Hudisteno ayaa waxa uu sheegayaa in xukuumadaha gobolka iyo caalamka intiisa kale laga yaabo inay isu diyaarinayaan khiyaarka noocaas oo kale ah inay la tacaamulaan. Hudisteno ayaa waxa uu sheegayaa in colaadani mar horeba dhab ahaan ay isbedel ku samaysay qaabkii amniga ee gobolka, oo macnaheedu yahay gobolka bariga dhexe in uunan ku soo noqon doonin xaaladdu siday ahayd wixii ka horreeyay dagaalka Iiraan lagu qaaday. waxa uu khabiirkani sheegayaa arrinta ugu muhiimsan ee isbedeshay in ay tahay kaabayaashii amniga iyo qaabkii amniga ee gobolka bariga dhexe, oo aad moodo in hadda xaalad cusub ay Iiraan dagaalka ku heshay ama bilowday. waxaa meesha ka maqan buu leeyahay xal waara. abaabulka laga shaqeynayo amniga gobolka ayaa waxa uu u baahan yahay in dib u qiimeyn lagu sameeyo, oo ay ka mid tahay mowqifka Iiraan iyo doorka Mareykanka iyo wadamada kale ee gobolka ay yeelan karaan. Hudisteno ayaa waxa uu tilmaamayaa arrimaha hadda laga shaqeynayo oo ay ka mid yihiin Turkiga, Pakistan iyo Saudi Arabia inay hadda heshiis saxiixdeen inay markhaati cad u tahay in awoodaha gobolka ay mar horeba bilaabeen inay ka wada xaajoodaan qaab iyo nidaam amni oo cusub oo laga yaabo in uu isbedel ku keeno arrimaha gobolka. hagaag waan gartay. isla arrimaha bariga dhexe haddaan kusii socono oo dhinac kale aynu ka eegno weeraradan xoutiyiintu ku hayaan dekedaha iyo xarumaha shidaalka Sacuudiga ma dhalin karaan dagaal ballaaran oo Sacuudigu ku qaado dalka Yemen? su-aashaas waa su-aal xasaasi ah. khabiirada arrimahan la fagura mar hore ayay sheegayeen Sacuudiga ilaa iyo haddeertan marka laga gudbo inuu tallaabooyin diblomaasiyadeed qaaday oo 14 dal oo ku teedsan badda cas uu heshiis la galay, oo Masar, Soomaaliya iyo Djibouti ay ka mid yihiin. sidoo kale waxaa la wadaa dadaalo kale oo la rabo in Sacuudiga uunan dagaalku sii ballaaran. laakiin xoutiyiintu qodobka ay ku dhegan yihiin ayaa waxay tahay haddii Sacuudiga uu joojiyo godoominta uu ku hayo goobaha ay gacanta ku hayaan xoutiyiinta, oo ay ka mid tahay dekada Xudayda iyo dekadaha kale, faragelinta uu ku hayo wadanka Yemenna uu joojiyo, in ay weerarka ay ku qaadayaan kaabayaasha muhiimka ah oo dekadaha eeraboorada goobaha shidaalka ay joojinayaan. laakiin ilaa ay hadheertaan Sacuudiga dhankiisa wax warara oo kasoo baxaya ma jiraan. hawshiisa si tartiib ayuu u wataa. xoutiyiintana waxaad moodaa weli inay ka go'an tahay inay sii wadaan godoomintii ka dhanka ahayd wadanka Saudi Arabia oo badda cas iyo dekadaha Sacuudiga ee ku yaala badda cas in ay isku dayayaan inay godoomiyaan maraakiibta ka baxaysa ama ku soo xiranaysana aan loo ogolayn. arrintaasna waxaa laga yaabaa inay culays weyn keento. khabiirada qaar ayaa waxay leeyihiin dagaalka waxaa laga yaabaa in dagaalkii bariga dhexe hore uga socdo Iiraan iyo Mareykanka u dhexeeyay hadda waxaa laga yaabaa inuu gobolka ku baaho. waxaa sidoo kale la xusay inay xoutiyiinta u madax bannaan yihiin waxa ay sameynayaan oo aan lagu eedeyn karin inay ka amar qaataan wadanka Iiraan oo danahooda sida looga shaqaysta ay yaqaanaan, awood badan inay leeyihiin oo badda cas ay xiri karaan. hore ayay u muujiyeen sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigeen. waa gartay. ugu dambeyntii haddii aan inta uga gudubno arrimaha bariga dhexe, ruushka
waxaa muuqata inuu xoojiyey weerarada ka dhanka ah dekadaha Ukraine. marka maxay arrimahan uga dhigan yihiin dagaalka iyadoo maanta ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Andy Burnham uu booqasho ku tegay Ukraine? gobolka Odessa ee wadanka Ukraine waa meesha kaliya badda madow ee wadanka Ukraine ay dekadaha ku leedahay, waxaana muuqata ruushka inuu si weyn u weerarayo kaabayaasha ay ku sheegayaan in militariga uu kaashado oo hubka iyo saanada kale laga soo dejiyo. dhanka Ukraine waxaa muuqata ayaga laftirkooda in ay ku eedeynayaan ruushka in uu duqeymo aan kala joogsi lahayn oo ku wado kaabaha muhiimka waxaa sidoo kale Ukraine lagu eedeynayaa in ay xadgudubyo waaweyn ka geysanayso gudaha wadanka ruushka, waxaana muuqata dagaalka hadda inuu galay weji aad u culus oo dowladda ruushka ay ku muujinayso in ayna la dhacsanayn wadamada taageeraya Ukraine oo ay ka mid tahay dowladda Britain oo la sheegay in 2 shirkadood oo Britain laga leeyahay ay siinayaan diyaaradaha drones oo meelo fog gaari kara in ay ruushka aad uga careysiisay. dagaalka hadda weji wuxuu ku jiraa baa leeyahay halis ah oo Ukraine waxa leeyahay uma adkeysan karto xaaladda hadda socota. haddii dekadaasi la qabsadana Ukraine waxay noqonaysaa mid go'doon ka ah caalamka intiisa kale. waa gartay waa yahay aad baa u mahadsantahay maxamed. daawadayaal adinkana aad baa ugu mahadsantihiin daawashada barnaamijka wararka caawa. inta ayaa barnaamijkan kusoo gabagabaynaynaa. waxaa inaga xasuusinaa haddii aad ku cusub tahay HBN Online TV ama hore aadan ugu xirnayn kusoo biir barahina kala duwan internetka aan ku leenahay. inta ku kulmi doono barnaamijka midka ku xiga insha Allah. nabadgelyo.